كاميرا فيري أنا دويسة والله اسكو شيغاي مرتيدا كاميرا ددبيسا ما أنت تشارلز كو قاعد إن بدن بالو قاعد فويس ما ماشي أنا تكسو دين جرتي halkan way ولا ها war asxaabay ma arkaan asxaabta way ku arkaan war asxaabay waan salaamaya waxa kale weydiina youtuberkii macnaha Somali voice ma toosa inta laga daawanaya hadda waa ha toos diyaar ha diyaar baad u tahay Soomaali asxaabay soo dhawaada maanta aniga marti baan diyaar baan u ahaa maanta waxaan marti u ahay ninkan Somali voice ba ma aragtay kulli hoosta laga soo galiyay aniga waxaan la hilib iyo wax baa lagu keenay youtuber la igu soo dhaweeyay sax oo lagu gaaday man waa la igu gaaday marka waxaan leeyahay asxaabta soo dhawaada channelkan hala kala kiciyo ninkan la soo dhaweeyo share like comments kudi hal isku daro subscribe kana martida aad buu ugu gaadaa oo ma aragtay waa arkay share inuu ku helo rabaa asxaabtayda inta ay taqaanana aad baan meeshan uga salaamay waxaan leeyahay waan salaamay boqol magacayga uma sheegay saaxiibayaal waa taqaanaan magacayga ma idin sheegay ma isoo weydiiya comment igu soo weydiiyana idin sheegay comments ka idin ku sheegayna magacayga marka waxaan leeyahay asxaabta waan salaamay soo dhaweyn kadib youtube kaada maanta maxaan jira program haddii aan geliyo meeshan ma ishii gareen adigana waa diyaar waa lagu shaaygareyn Soomaalida Islaam raba inaan fuulo maanta saas miya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu asxaabay waan idin salaamnay meel walbood kala joogtaan Soomaali weyn ku soo dhawaada channelka Somali Voice TV ma isla socosho wanaagsan waxaan idin ka codsanaynaa waxa waaye inaad subscribe ka noo saartaan waliba kuwa nagu cusub subscribe ka noo saaran kuwa nala sii joogay mahadsan yihiin kuwa noo imaan doona iyagana sidoo kale waan mahad celinayna maanta de yaa nala jooga legend yaa nala jooga subscribe marka subscribe marka legend waa nala jooga maanta waa Ismaaciil waa Cismaan marka de maxay heeday isla socod wanaagsan asagaana ku soo dhaweynaya inta la idin ma sheegin iska socdo laakiin ay dhimaan ninkan magaciisa wadiin diidan yahay kulli waa ku soo dhaweynaynaa de maanta wuxuu noo wada uu noola imaaday kulli waa ka sugaynaa de maanta hay soo dhawo in kasto saaxib horta ani maanta aan youtuber kan aan rabo waa youtuberkii koobaad ee igu horeeyay aan rabo inaan wax dad oga sheego oo aan wacyigelin ka sameeyo wacyigelintan waxay ku saabsan tahay Soomaalida ku nool Islii Soomaalida Islii ku nool waxaa jirta ani arrimo aan ku arkay oo fara badan marka arintaas ayaan rabaa maanta inaan si ma aragtay toos ah inaan wax uga sheego Soomaalida Islii badan waxaan ku arkay aniga taksiilan ahay dad baan townka geeyaa asxaab baan leeyahay oo israacnaa Isliina waa isla joognaa marka la joogo Islii dhaxdeeda waxaa jirta qaab ay u dhaqmaan townka markay tagaan qaab ay u dhaqmaan marka waxaan leeyahay markaad Islii joogto wixii hataa cuntadii iyo qashinkii baad gurigaada hortiisa ku daadisaa townka markaad tagtana kaarka yarka aad fiiqato macnaha waxaad ilaalisaa jeebkaad gashataa hataa diif hadaa soo rido jeebkaa gashane canjuufta hataa jeebkaa ku ridane marka waxaa loo baahan yahay sharciyan dadka muslimiinta ah meesha ay degan yihiin meel nadaafad leh oo qurux badan oo dadka lagu dayda ay noqdaan arintan wacyigelinta array Islii bay ku socotaa marka waxaan leeyahay sida aad u ilaalinayso townka inaad u ilaaliso Islii mararka qaar waxaad arkaysaa dad ama cuntaha noqoto ama qashin ha noqdo wadada ku daadinaya marka Soomaalida Islii youtuberkada reer Islii may ku jiraan waa ka baxana mise caadi baan wala daawana gaari muuqaalku meel kasta cidlaan meeshan ya meel kasta ma gaarisa ama wuxuu sheegaa gaarisa meel kasta wala gaarsiini meel kasta wala gaarsiin codkaada wala gaarsiin Soomaa war si shaagareen nadaafada waxa loo baahan yahay dadka inay noqdaan dad ma aragtay muslimiin ah oo wanaagsan oo nadaafada ma aragtay nadaafada waxa leeyahay waa qayb iimaanka kamid ah marka ani dad badan oo waxaan arkay markay townka joogaan dhaha wariyaa ilaali jeebkaada wax ka soo bixine maxaa dhigi jiray hadhow markaad Islii aad imaatana aad wax alaali wax harta wadada ku turto xataa adoonta Islii markay imaadaan waxay ku tuuraan waxay rabaan iyo qashinka iyo xaarka iyo say rabaan bay yeelaan marka aniga waxaan maanta u gudbinayaa Soomaalida dhamaanteed waad iga gaarsiinaysaa Soomaa fariintan waxaan idin gudbinayaa in nadaafada magaalada ilaalisaan Islii waa meel Soomaalida lagu tilmaamo waa meel aad u qurux badan hanti baa la geliyay guriyo qurux badan ma ka dhisan waxaan leeyahay arintan hor ha loo wado nadaafada ha la ilaaliyo wadooyinka maxad ka dhihi lahayd wadooyinka Islii maalmahan shaqooyin badan baa ka socdo
يعني isbedel mu ka muuqdaa kula tahay mise wallaahi wadooyin badan oo xiran baa jira oon la mari karin oo laga wareegsado qaabkay u xiran yihiin wasakh iyo nadaafad darre u xiran yihiin ma aqaana kulli taas madaxda ayay maaragtay ee u taalaa waxaan rajaynayaa in la dhiso sidoo arta dhismo badan baa socda xaafad markaad fiiriso xaafadaha isdii oo kaleeto wadooyinka aad fiiristo dhisma ka socdaan aad bay u kala socdaan waa la dhisahayaa marka dhismaha ka sokow dadka dhexdiisa bulshada bulshooy nadaafadda hala ilaaliyo nadaafadda wax ka fiican ma jirto annaga haddii aan nadaafadda ilaalinin waa meesha keliya soomaalida ay deganta aniga tagsiilan ku ahay magaalada mararka qaar waxaad arkaysaa meelaha qaar waad ka xishoonaysaa xataa inaad canjuuf yar aad ku tufto waad ka xishoonaysaa kaarka aad fiiqatay inaad ku turto si loo hagaajiyo bas soomaaliga waxaad arkaysaa islii dhexeeda adoo maraya bahal diifu wuxuu kaga siinaa markaasaa u malaynaysaa ruux inagtaa lagu legday indhiisa camal uga booday baalka waxaa arkaysaa oo kale niyahow sidoo kale ayadana aakhada buxa wix jeebka ku jiray qashinkii marka ilaahay ka cabsada macnaha inaad ma aragtay sharci ilaalinsaan ma ilaahay ka cabsada marka waxaan leeyahay asxaabta waxaan leeyahay soo dhawaada channelkan ha loo kala kiciyo ninkan subscribe saara haddii aad soo dhaweystaan waxyaalo badan programyo badan baa idin haynaa sheekooyin badan baa idin haynaa waan idinka qoslin doonaa asxaabtayda waxaa jiraan aad aan u jeclaa meeshan sideed u aragtaa Cismaanow maartay hawlahan YouTube oo kale maxaad ka aaminsan tahay sidaas u aragtaadi YouTube ana horta waxaan ka aaminsanaa khiyaali inkastoo YouTube-ka markaan galo marka qaar hablaha qaarkood oo Soomaaliyeed markaan arko aan naxo oo caloosh ay xanuunto laakiin haddana YouTuber waxaa la yiri baniyo lacag laga shaqeystaa baan ana xataa inaan soo galaan rabaa yaa soo birdarta niyo lacag la sheegaya saaxiibo dad waxay sheegayaan bo meeshan saaxiibkay Big Bro waa isnaqaana waa saaxiibkay moogtay meeshan waxaa lagu ka taajiray Big Bro yani suuqa amala isla joogi jirnay suuqa amala dukaanley ku aan jirnay saaxiibkay Big Bro saaxiibkay waan salaam haya marka rag badan ay u kala kacday ya Big Bro waa taganiyo Mareykanku joogaa miyaa hadda ma aqaananiyo marka waxaan niyo ani karbaashka kuma fiicnay rag badan oo karbaash la way jiraan laakiin YouTuberka meel aan ka soo galaan raadinaya daaqadna Allah ka dhigo waan soo gal rabaa ani laftirkayga marka hal kala kiciyo YouTuberka nimayo ninkan YouTuberkiisa loo kala kiciyo ani meeshan ay iga fiirsan doontaan hadda ka dambe dudaa ka raal noqdo ma sha Allah asxaabay waxaan maraynaa gabagabadii maxay hayday waxyaalo badan oo aad u wanaagsan walaalkan uu noo sheegay maqraatina waan ka nahay sababtoo markii hadda xaafadda islii oo kaleeto maartay loo fiiriyo xaafadaha kale ee Nairobi kamida islii wallahi ha joogina ku qabanaysa macnaha say tahay marka taasna kulli waxaan rajaynaynaa dhamaato oo la hagaajiyo marka de nadaafadda laga wada shaqeeyo waa sida noo sheegay wariyada warada khair baan idin dhaafnay nimayahow isla socod wanaagsan hadaad meeshan ku xirnaataan waxyaalo badan baa soo gali doono waxa imaan doona rubaayado waxaan keeni doonaa clipsyo dadka maartay u ah faa'iido wax badan oo lagu farxad soo galin doona meeshan kala kiciya meeshan waxaan rabaa in xaysiis ay gaarto niyo meesha suuqan hagaajin niyo ana idin ku soo biira hadda maanta wixii laga bilaabo aniga waa maartay wixii qosol ah wixii sheeka ah wixii xaraaba tala wanaag wax walba macal waxaan ka hadli doonaa jacaylka waxaan ka hadli doonaa diinta waxaan ka hadli doonaa dhaqanka wanaagsan waxaan ka hadli doonaa gabdhaha Soomaaliyeed meesha hadda marayaan inay ka soo laabtaan channelkan wax badan baa kala socon doontaan khamram balda khamram soo dhawaada khamram macnaheedu maxaa waay markaa khamramka ma isku jir waa no macnaheedu qornin baa waxa leeyahay halda mugtay nin ag fadhiya wuxuu dalbada cunto markaas wuxuu dhahay saaxiib kirisho mirish ii ka mudhaa mugtay xariifka ag fadhiya marka kirisho mirsha lagu maqaya moogta kan kale cuntada wuxuu maray wax fiican mu maray moogta kirisho mirsh ii ka mudhaa asagana caluley baa loo keenay hadda khamram intaad aragtaan ha u malayna wax kale waa khamra wax kasta ka wadnaa haska dhicinade sax marka hadee isla socod wanaagsan marka halkaan naga daawanaysaan Somali Voice TV war waan idin sheekayn doonaa insha Allah